Soomaaliya xasiloonida siyaasadeed ee hadda dawladnimadu ay ku soo gaaraysaa waxay tahay farab Cabdiqaasim laga soo bilaabo carta in mar walba isbeddelka siyaasadda uu ku dhaco xilligiisa dawladnimaduna taamkeeda ayna dhaafsanin taasaa keentay markaa in Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii Allah naxariisto markii waxay yimaadeen la yiraahdo maya waa in waddanka saa loo galo Sheekh Shariif dhamaystirkiisii Xasan Sheekh tiisi haya waqtigii laguma dari karo madaxweyne Farmaajo la muujiyo markaa inay isbeddel loo baahan yahay in doorasho loo baahan yahay ma aha macnuhu qofka joogay ma soo noqonaya mise ma soo noqonaya laakiin in calafka la qaado oo isbeddelka siyaasadda waxaa asal u ah in la helo oo xasiloonida ay qayb ka tahay in doorashadu ay xilligeedu ku dhacdo deegaan doorashooyinka waxaa labada looga dhigay haddii markii hore ay Muqdisho ahayd oo laba deegaanada la geeyey 6 goob deegaan doorasho la geeyey in haddana la sii badiyo si isku dhexgalka bulshada iyo deegaanku ay u sii hirgasho in la qoro deegaanada iyo dadka iyo say yihiin 2016 waxaa la qoray waxay ahayd deegaano walba dadka degan in la qoro laakiin annaga tan waxaa muhiimadda aan u arkayna waxay ahayd in stateka loo daayo oo isagu kuraasta uu kala qaybiyo isagoo aan loo fiirinaynin yaa degan iyo yaan degaynin laakiin markii dambe waxay noqotay in la yidhaahdo maya yaa degan iyo xaggee la degan yahay haddii markaa ay noqotay filitaan la filayey in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatay iyo kuraas iyo noocaas horta waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhani doorashada la qabanayo stateka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer federaala guddiga doorashada la samaynayo waa 11 ay 8 leeyahay stateka uu leeyahay amniga doorashada iyo qabashada iyo meesha lagu qabanay isagaan haddaan garbaharey tegayno oo lagu qabanayo waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa waxaan rajaynayaa dowladda federaalka ah intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto maamulada gobolka ku jireen ay ku soo celin doonto hadday intaasi dhici weyda laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sunnada kuraasta loo yeelayo inay noo socon doonto ku qanca oo ku jooga waxaa hadda aad ii culaysinaya xildhibaano Jubbaland ka soo jeedo kuraasteeda maxaa halkaa loo geeyey maxaa halkaa loo geeyey waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaq annaga u leh inaan qabanno dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay meeshaan ku qaban karayna ku qabsoomi doontaa intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurtale iyo kulli intay ka baxaan in deegaanadu ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan